dadka walaalaha beenta in laga faafiyo waa wax laga fiican yahay. Marka waxaan arkay gabar Soomaaliyeed oo dhahayso waxaan ahay gabar Soomaaliyeed oo dhahayso waxaan arkay Yacko walaashiisaan ahay. Yacko waa la sixray, waxaa sixray baabajey. waxaas aqoon uma lihin, ilaahayna ma aragtay inta muslim ah waxaas kuma salido. Wacalaykum salaam. آمين يا رب. آمين حسن عبدها من آمين يا رب صاحب واليه. marka walaalkayga baabajey waxba yaala nabin baabajey waxyaabahaas kama suurtoodo, mana igu samaynayo. waa walaalkayga maanta aniga runtii dadka ii dhow oo ka mid yahay baabajey. dadka aniga ii dhow ayuu ka mid yahay baabajey. marka qofka walaalka ah in la nabo waa laga fiican yahay. qof walaal ah inaad nabtid maxaa ka faa'iiday? wax laga faa'iidayo ma laha. baabajey waa nin walaalkayga ah, waa saaxiibkayga, waa nin aan shaqo wadaagnahay, waa nin aan aad isugu dhownahay. maanta aniga qofka kaliya dhibkayga aan u sheegan karo inuu asaga yahaan hubaa, asna qofka dhibkiisa uu sheegan karo inaan aniga ahaan hubaa. baabajey waxba yaala nabin. gabadhan ma aragtay meesha social media la soo fadhiisatay baabajey ma aragtay Yacko sixray. waxaas waa wax kama jiraan, waa been aan sal iyo raad lahayn. waa been aan sal iyo raad lahayn. آمين يا رب آمين. qofka bini'aadanka waa iska xanuunsan karaa. markuu xanuunsado social media waxaanba kala yaabay, qaar waa dhintay iska adla gelinaya, qaar waxay ku leeyihiin waa la sixray, dadkii walaalihii afka isku gelinaya. baabajey waa aniga walaalkayga, waxaas kama suurtoodo, mana u malaynaya inuu waxaas sameynaya, mana aha nin sameeya ma aha. waa qof ehlu salaad ah. qof ehlu salaadna waxaas kama suurtoodo. marka gabadhaas ummadda rabta inay isku dirto ka waantoodo ma aha. qofka ma aragtay ayadoonan waxba lagu hubin in ay afka iska saarto waa laga fiican yahay. waxayna tiri familkoo dhanaa qaba. familkayga waxaas ma qabaan. familkayga baabajey mimbar waxa waaye familkayga ka mid ah. waa walaalkayga, waa saaxiibkayga, waxaasna kama suurtooban. wacalaykum salaam faatma suufi. wacalaykum salaam. آمين يا رب آمين. إلهي إذنكيس واسك عافي ماذا سعاد حسن. آمين يا رب آمين. إلهي إذنكيس عافي ماتك الله هاي واسك وجع سنة. الحمد لله وحو الله إيغور مرا وحكريت مرا ما أنت مالها وحي إلهي إيغور مرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي قالي وايدين سلام ميل والبودنين ضافيدا كجوكتين ومركلي ولاشيني خروجة وهورين هذا جنال كعصبتاي سبسكرايب صار هذا هورن ولا جوكت قيب تلاقي أنا قدس فريم محن قبتانكم انتقنوا قريبة ولا ليه قالي أسود دوادا انت حنوصن على عافية انت عافمات قبتا على وسيادية انت دمتن على ونحريستا walaalahayga qaaliga aad iyo aad ayaan idinkugu xiisay. waxaa filayaa sida anigu caafimaad qaba idinkugu soo laabtay in adigu caafimaad qabtiin igugu soo laabateen walaalihi. marka waxaa rabaa inaan hal iyo laba ka dhaho meeshaaniyati video labadan bir social media ku arkayay. aad iyo aad ayaa ugu naxay video hordhiciisana ku soo aragteen sidoo walaalkan Yacko asigoo xanuunsan oo ugu dacwoonayo. waa gabar Soomaaliyeed oo YouTube-keeda ama baraha bulshada soo dhigtay Yacko oo idoo dhahayso baabajey ayaa sixray. subxaanallah waxaas wax lagu hadla maaha. qofkii waxaa sameeyane diinta islaamka waa ka baxay. sixirka wax dheedheeleh maaha, waa wax diinta ka saari karo. subxaanallah waxaas camal wax la sheega maaha. walaasheeda macaan wax hubin qofka bini'aadanka dadkeeda wuu sameeyay dembi ayaa kuugu sugan.
qof xanuunsan iyo qof saaxiib ay yihiin inaad iska hor keentana wax fiican ma aha. Qofka bini'aadamka meesha xanuunayso ma ogid, lama joogtid, inaa haddana aad dhahdid walaashiis ayaan ahay. Waa aragtay sida uu kaaga cabanayo qofkaas bini'aadamka markaa wax uuna sameynin iyo waxa lagu sameynin aa ku nabato. Waxaa dhici karto inuu naxtinta oo ka qaado iyo yaabka inay adiga dhibaato kuu keento. Marka waxaanu hubin lama rabo inaad soo bandhigto walaashayda macaan. Waxaa filaya inuu fiidiyogan ku soo gaari doono. Waxa daarabta inaad ka hadasho sidaas loogama hadlo. Waxaa la sameeyaa ma ogi ayaa iska dhigi kartaa xataa sidaas ayaa la sheegayay xataa idoo dhib kugu tahay. Laakiin inaad tiraahid waaba sameeyay walaashiis ayaana ahay oo labada qofood iska hor keento. Qofka markuu arko oo yaabo ayaa soo qoftan soo dirsada camal. Qofkan kale markuu arkana oo yaabo labada qof meesha si colaata ayaa ka dhex dhici karto. Qofkii xanuunsan inaa dadkiisa ku dirto waa wax laga xumaa karo. Marka waxyaabahaas camal iska daaya walaalahayga Soomaaliyeed dhammaantiina meel walba adduunida daafeeda ka joogtiin. Marka fiidiyowga doo idin soo gaaro insha Allah like saara una share gareeya gabadhaasiti. Aniga waa arkay gabadha fiidiyowgeeda waa daawaday bilaa ilaa dhamaad. Mana jeclaysan inaan soo qaato oo soo dhigo. In aragteen ayaa filaaya walaalkeenna waa ka maqasheen codkiisa sida uu ku sheegayo sigoo xanuunsan sirtiisa jiifo. Ilaahay ha caafiyo caafimaad tamaam Ilaahay ha siiyo. Waxyaabahaas camalna gabar Soomaaliyeed way sameynaysaa aan ismaana dheheenin. Subxaanallah. Gabdhaha waa dadka ugu naxariista badan dunida. Inay dad isku diraayaan ma filaayi. Waxa oo qof aan ku hubinna aad tiraahid waxaas uu sameeyay waa wax laga xumaa karo. Subxaanallah. Baabajee waa qof iska maskiin inaad nabtid adoo waxba ku hubin haddana qof ay saaxiibayiin ka hor keento. Maana ka cabsanaynin inuu qofkaas bini'aadamka oo ka naxo. Qof bini'aadan inaad qalad ka gasho ama aan nabsato wax fiican ma ahan. qaladka adduunka la galo qaladka bini'aadanka laga galo ayaa ugu xun. Ilaahay waxa ka gasho waa ka tooba keenaysaa woona ka cafinaa laakiin qof bini'aadan aqoon u lahayn maanta haddii aan nabto ama aan qalad ka gasho kaama cafinaayo. Soo moogid meel aan cafis ugu dalbata ayaa weey kartaa. Marka hadda maanta waxaa laga yaabaa xataa cafis soo dalbato oo YouTube-ka soo dhigto qofkaas awna arkin. Dadka badanaa wixii xun ay share gareeyaan wixii wanaag ku jiro maba share gareeyaan. Adiga oo maanta dhahday cafis ayaa dalbanaya hal cafi waxaa laga yaabaa inuu gaarin oo arkin. Haye lambar inaan ka helin ayaa laga yaabaa. Qofka maanta wuu share gareynaya marka aad leedahay sidaas ayuu sameeyay. Laakiin marka cafiska dalbanayso inuu ku share gareynaya laga yaabaa oo arkin. Cafiskaaga oo gaarin oo sidaas oo kugu cafinin. Marka waxa qofka bini'aadanka ka sheegaysa ama ku nabsanaysid oo ilmada ugu keenaysid wax fiican ma aha. Iyo xataa qaarkood aan dhahabo community-yaasha loo qoraayo. Xataa hada fiidiyow wiilkiisa soo duubay arkay wiil saqiirina aabiis waa dhinta la dhaho. Asigoo aabiis dhimanin dhimashada laga sii hormariyo lagu sii saadiyo horta qof walba dhimanaysa naf walba oo dunidaan timidane maalintu Ilaahay ugu talagalay ayay ka dhaqaaqaysaa maalinteeda maalin looguma daraayo. Marka Soomaali Maxamed qof aan dhimanin dhimashaha ku saadinina. Qof wax sameynin ha ku nabsanina. Aniga waxyaabahaas camal mar walba waxaa jecelahay inaan idin kala hadlo. Adinkana waaba ka heshaan dadka oo qaasatan social media leh way jecel yihiin mar walba dadka ay soo dhigaan ay nabsadaan. Fiidiyoyaal badan waxaa arkaysa dad nool oo la dhahayo waa dhinteen. Marka waxyaabahaas camal ma fiicno. Hooyo waxaa arkaysa la dhahayo wiilkeedii ayaa dhintay ayadoo dhabta ku haysato. Subxaanallah. Waxyaabahaas camal way dhacaan hadda korxtaa walaashan Shaadi Sharaf oo ka dacwoonayso waa aragteen. Wiilkeeda dhabta ku haysato ee korka ku haysata la leeyahay oo dhinta. Subxaanallah. Saqiirkii iyo qofkii weynayba qof la cafinayo malaha meeshaan. Marka walaalayaalow iska daaya waxyaabaha xun oo maxaa la dhihi jiray ku raadinaysiin views-kii waxa loo joogin qof dhimashadeeda waxba kuuma tarayso. Qof walbana way dhimanaysaa adiga waa dhimanaysaa adduunkan qof saarnaanaysa ma jirto. Qof walbana maalintu Ilaahay ugu talagalay ayay ka tagaysaa. Marka Soomaali Maxamed meel walba aad joogtaan iska daaya xumaatada. Wallaahi haddii Soomaali is jeclaan lahayd ee dad isku wanaagsan ee naqal lahayd walaalahayga insha Allah waxaa jecla mar walba inaan wanaaga iyo waxyaabaha oo wanaag ku jiro idin soo bandhigo insha Allah. Fiidiyoyaal badan ayaa noo soo socdo cunto karinta waa idin sameeyay hadda intaas ugu soo baxo walaalkayga Yacko iyo Baabajee iyo gabadhii kale toodba. Marka waxaa filaaya inay gabadh arki doonto. Fiidiyowgayga u gaari doono. Fiidiyowga dad ku soo gaaro oo ka heshay like saar subscribe ka dhacno sii comment qurux badan oo reeb.
insha allah walaalahayga aad iyo aad u mahadsantihiin fiidiyoogii oo ahay ila tali iyo qisooyinkan waa idin soo wada insha allah waa idin soo gelinaa fiidiyoogan fiidiyo ku xig ayuu noqon doonaa insha allah waxaan rajeynayaa inaa ka heli doontiin cunto karinta waa idin soo wada waa isku dhex wadaa insha allah waa dadaalayaa adikana dadaala walaalahayga qaaliga aad iyo aad ay u mahadsantihiin meel walba oo dunida daafeeda ka joogtiin aad iyo aad ay u mahadsantihiin insha allah next video kale aad iyo aad u qurux badan walaalahayga qaaliga mar walba waxay noo balana wanaaga iyo samaanta insha allah waxyaabaha xun hal iska daayo nabiyada sidoo kale tood nabiyo naarka kul hore ayaa loo dhahay iska daayo nabiyada insha allah qof bilaadan nabin hana nabsanin insha allah walaalahayga qaaliga sidaas ayaa noo balana assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mac salaama walaalahayga qaaliga aad iyo aad idinkugu xiisi doonaa